waatahay dhegaystayaal casharkeenna 14aad ee barashada afka Netherlandska waxaan caawa ku soo qaadan doonaa xuruufta iyo tirada balse aan ku bilaabo marka hore ereyada loo isticmaalo layliyada opdrachten instructie marka qaar layli ayaa lagu dirayaa layliga lagu diray ereyada la isticmaalayo waa in aad fahantaa lees voor lees hardop lees voor lees hardop waa kor u akhri codka kor u qaad oo akhri kijk goed si fiican u eeg si wanaagsan u fiiri marka waxaa laga yaabaa inay amarro kale xigaan laakiin waa inaad garataa ereyada ugu muhiimsan ee inta badan la isticmaalayo zeg na ka daba dhawaaq marka aad maqasho ka daba hadal luister naar het gesprek wada hadalkan maqal waxaa laga yaabaa hadhow in jawaabo lagaa rabo ama in su'aal lagaa weydiiyo dus waxaa lagu leeyahay luister naar het gesprek hoor en geef de juiste antwoord hoor en geef de juiste antwoord dhegayso oo jawaabaha saxda ah sheeg wijs aan tilmaam farta ku fiiqid ama fartaad ku fiiqaysaa ama waad taaban kartaa ama klik baad mouska ku samayn kartaa kies het goede antwoord kies het goede antwoord kiezen waa xulo ama dooro marka jawaabda saxda ah ayaad dooranaysaa mararka qaar waxaa lagu oranayaa kies het goede antwoord omcirkel het juiste woord omcirkel het juiste woord waa wareeg ku samee ama goobaab ku samee vul in met d of t achter vul in met d of t ku buuxi ama d ama t baa lagu leeyahay invullen ayuu ficilku ahaa marka waxaa lagu leeyahay vul in met d of t trek een lijn onder het juiste letter trek een lijn onder het juiste letter xariijin ku qor xarafka saxda ah hoostiisa wagaag waxaynu u gudbaynaa markaa xarfihii iyo tirooyinkii a b c zijn letters kleine letters a b iyo c daas yaryari waxaa la yidhahdaa kleine letters waa xurfihii yaryaraa a b c d waa hoofletter iyagu waa xuruuf waaweyn waa hoofletter een woord haddaad maqasho een woord waa erey tusaale een man ik ben moe dhammaantood waa wada woord een woord staat uit meerdere letters ereygu wuxuu ka kooban yahay dhowr xaraf ama xuruuf la isku dardaray sidoo kale een zin waa weedh waa hadal dhowr erey ka kooban oo macno leh waana la fahmi karaa tusaale koos kijkt televisie ik heb 3 woorden 3 erey ayaan markaa isku keenay koos kijkt televisie ze vormen samen bij elkaar een zin marka la isku geeyo waxay samaynayaan word hadal la fahmi karo 3 erey oo la isku geeyey waxay noqdeen een zin waa word waxaan idinku darayaa getallen en cijfers waa tirada iyo sumadda ayaa af Soomaali la yidhaha 1 2 3 5 zijn cijfers waa sumad weeye waa tirana waynu idhahnaa laakiin sumad weeye
ereyga macnaha runtii een cijfer waxa weeye tiro af Soomaali 1 2 3 4 5 zijn cijfers. 1 is een cijfer, 2 een cijfer, 3 een cijfer. Waxa weeye tiro af Soomaaliga ama af Soomaaliga waaweyn haddii aan ku sheego sidii mar dhaweyd baan ku sheegay waa sumad wey. Waxaan u gudbaynaa markaa 10, 20, 30, 45, 66, 88, 91 zijn getallen. Marka tusaale een getal marka aad maqasho waa tiro. Dhowr markaa sumadood ama dhowr lambaro isku tegay hadday lambar weyn noqdaan af Nederlandka waxaa la dhahdaa een getal. 3 is een cijfer, 5 is een cijfer. Bij elkaar ze vormen een getal. Marka 3 iyo 5 haddii ay isla socdaan oo la is ag dhigo 35, 5 iyo 30, 30 iyo 5 waxay noqonayaan een getal. Hadhow marka lagu weydiiyo waa inaad sidaa u kala garataa. Waa hagaag dhegaystayaal cashar waliba markuu inoo dhammaado waxaan isku dayi doonaa bal in aan ku soo gabagabayno 3 mahmaahood ayaynu soo qaadanaynaa. Ta u horreysa caawa. Met de armen over elkaar zitten. Met de armen over elkaar zitten. oo macnaheedu tahay ama aad taqaanin niets te doen hebben. Niets te doen hebben. Waa qof aan waxbaba qabanayn labada gacmood buu sidaa isku dhaafinaya mar walba wuu iska fadhiyaan. Marka waxaad odhan kartaa dat kan toch niet? Je zit altijd met de armen over elkaar. Ga maar iets belangrijk doen. Mar walba gacmaha ayuunbaad sidaa isku weydaarisaa. War orodoo wax muhiima qabo waad leeday. Je zit altijd met de armen over elkaar. Ga maar iets belangrijk doen. Iemand met open armen ontvangen. Iemand met open armen ontvangen. oo macnaheedu tahay iemand gastenvrij ontvangen. Waa qof baad si kal iyo laaba u soo dhaweynaysaa ama si qalbi furan baad u soo dhaweynaysaa. Ik denk niet dat je met open armen wordt ontvangen bij iedereen. Ik denk niet dat je met open armen wordt ontvangen bij iedereen. Uma malaynayo inuu qof waliba si kal iyo laaba ama si qalbi furan kuu soo dhaweynayo. Iemand in de armen nemen. Iemand in de armen nemen. oo macnaheedu noqonayo iemand om hulp vragen. Iemand om hulp vragen. Waa iemand in de arm nemen waxay noqonaysaa marka je kan het beste advocaat in de armen nemen baad leedahay. Je kan het beste advocaat in de armen nemen. Haddii aad doonto lawyerka ugu wanaagsan ayaad icaawi leedahay. Intaasna waxaan kusoo gabagabeynaynaa casharkii 14 ee barashada afka Nederlandska. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa meel kastood nagala socotaan dalka Belgiumka iyo dalka Nederlandba. Dhammaantiin dhammaantayo nabadgelyo.